بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada Puntland xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha wakiilada xubnaha golayaasha dowladda golaha garsoorka golaha wasiirada saraakiisha ciidanka shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee golaha wakiilada dhammaan marti sharafta halka joogta mudana gudoomiye mudana iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idin hor imaado si aan idinka warbixiyo xaaladda guud ee Puntland guulaha la gaaray muddadii u dhaxaysay labada kal fadhi bishii December 2025 iyo bishii shanaad May 2026 sidoo kale aan in la wadaago meesha ay marayso xaaladda amni siyaasadeed ee guud ahaan Soomaaliya waxaa hortiina yaala buugyare lagu soo koobay waxqabadkii ugu waaweynaa ee xukuumadda u qabsoomay muddadii 6 bilood ee u dambeysay iyo buug warbixinta waxqabadka golayaasha dowladda ee sanadkii 2025 kuwaas oo aad ka dheehan doontaan kororka waxqabadyada la xiriira adeeg bixinta dowladda ee kala duwan sida adeegyada arrimaha amniga iyo ku dhaqanka sharciga arrimaha bulshada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha tayeynta awoodaha hay-adaha dowladda iyo kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga daahfurnaanta iyo ixtiraamka ka dhaxeeya hay-adaha iyo golayaasha kala duwan ee dowladda mudana gudoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin guud ahaan amniga deegaanada Puntland ayaa ah mid xasiloon mana jiro dagaallo ama isku dhacyo amni oo hadda ka jira gudaha deegaanada dowladda Puntland dhamaystirka howlgalka calmiskaad iyo ciidamada Puntland kula jireen cadowga argagixisada Daacish ayaa weli socda buuraleyda calmiskaad sida la socotaan ciidamadeena geesiyaasha ah oo kaashanaya taageerada cirka iyo saaxiibada caalamka waxay ku guuleysteen inay burburiyaan awoodda ciidanka iyo qalabka ee argagixisada waxaa kaloo meesha ka baxay culayskii amni iyo dhaqaale ee ay ku hayeen bulshada reer Puntland gaar ahaan ganacsatada taasoo keentay in ganacsigii horay cabsi awgeed uga tagay ganacsadii horay uga tagtay cabsi awgeed dalka dib ugu soo noqdaan goobihii ganacsiga isla markaana ay abuureen maalgashiyo ganacsi oo hor leh horumarka ganacsi bulsho iyo amni ee guud ahaan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa aad isu bedelay tusaale noolna ah waxaa sida ay shacabka Puntland ugu soo baxeen muujinaya ciyaarihii caasimadaha gobolada Puntland ee koobkii calmiskaad ee lagu qabtay magaalada Boosaaso dadka reer Puntland waxay muujiyeen heerka xadaaradda iyo midnimada iyo guud ahaan bulshada Puntland gaar ahaan dhalinyarada ay leeyihiin taasoo qayb ahaan ka dhalatay guulihii dagaalka calmiskaad sadar muuqda su'aal ka dhan mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dowladda Puntland iyadoo ka hortagaysa in aan argagixisada dib u soo abaabulin waxay deegaano ka tirsan calmiskaad saldhigyo uga samaysay 2 guuto oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo si joogto ah uga howlgali doona deegaanadaas sidoo kale dowladda Puntland waxa uu u degsan qorshe howlgal onkod oo looga safeynayo kooxda argagixisada al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin buuraha calmadow ee gobolka Sanaag amnigu waa saldhigga horumarka sidaa darteed dowladda Puntland waxay joogtaysay tayeynta ciidanka amniga iyada oo tababaro qalabayn iyo dayactir kaabayaasha amniga u samaysay ciidamada booliiska hay-adda nabad sugidda ciidanka daraawiishta ciidanka ilaalada xeebaha iyo asluubta intii u dhaxaysay labada kal fadhi waxaa tababaro loo soo xiray 3 dufcadood oo booliis ah
sidoo kale waxaa tababar xirfadooda kor loogu qaadaya la siiyey ciidamada asluubta waxaa hadda xerooyinka tababarka ciidamada qalabka sida ee jenaraal gariin iyo xorgable ku jira qaybo ka mid ah ciidamadii ka soo degay buuraha calmiskaad si kor loogu qaado loona casriyeeyo aqoontooda ciidannimo dowladda puntland waxaa sharaf u ah in saaxiibbada caalamku u aqoonsadeen ciidanka difaaca puntland inay yihiin ciidamo geesiyaalah oo leh waddaniyad ayna ka go'an tahay difaaca dalkooda iyo dadkooda waana midda keentay in ay iskaashi amni la yeeshaan dowladda puntland si soomaaliya iyo geeska afrika looga sifeeyo dhammaan kooxa argagixisada mudana guddoomiye iyo mudanayaal iyada oo laga duulayo hirgelinta qorshaha casriyeynta amniga ee aan kalfadhigii hore ku dhawaaqnay waxaa dowladdu hirgelisay qorshayaal casri ah oo hay-adaha amniga puntland gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda u sahlay dabagalka iyo qabashada dembiilayaasha taasoo keentay inay hoos u dhaceen dembiyadii abaabulnaa iyo dembiilayaashii khatarta ku ahaa amniga dadweynaha magaalooyinka waaweyn ee puntland sida boosaaso garowe iyo gaalkacyo waxaa howlgallo ciidamo boliis ah oo leh xirfad iyo aqoon amni oo sarraysa kuna qalabaysan gaadiid iyo agab kale oo u sahlaya in ay fuliyaan waajibaadkooda dastuuriga ah muddadii u dhexaysa labada kalfadhi hay-adaha dowladda ayaa dadaal ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya qaar ka mida beelaha puntland gaar ahaan gobolka sanaag iyo mudug waxaa jira khilaafaad weli ka dhex jira beelaha qaarkood ayna socoto sidii xal waara looga gaari lahaa waxaana ka tacsiyeynaynaa dadka shacabka ah ee khasaarahaas dhimashada iyo dhaawaca leh uu soo gaaray mudana guddoomiye iyo mudanayaal iyo marweyn in kastoo ay ina soo wajahday culaysyo dhaqaale oo ka dhashay dagaalka iiraan kaas oo saameeyey dhammaan dhaqaalaha dunida balse hay-adaha dakhliga dowladda puntland ayaa dadaal badan oo joogto ah ku bixiyey sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga si loo daboolo kharashaadka ay waajibisay miisaaniyadda sannadlaha ah loona hubiyo bixinta adeegyada joogtada ah ka hor inta uusan bilaaban dagaalka iiraan waxaa kordhayey dakhliga dowladda puntland tusaale ahaan bishii oktoobar ilaa diseembar wuxuu dakhligu kor u kacay 8%. balse bilihii uu dagaalka socday waxaa muuqata hoos u dhac dhinaca dakhliga ah iyadoo ay jiraan culaysyada uu keenay dagaalka iiraan haddaba dowladdu marna ma joojin shaqooyinkii hortabinta u leh horumarinta dhaqaalaha waxaana si habsame leh u socda dhismaha waddooyinka gaar ahaan bacaadweyn gaalkacyo ceeldaahir ceergaabo iyadoo laga duulayo qorshaha horumarinta ganacsiga dowladda puntland waxay fududaysay isku socodka gaadiidka xamuulka ah ee isaga gudba puntland iyo etoobiya taas ayaa waxay qayb ka tahay inuu aad u kordho dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo in badeecadaha ka soo dega dekadaha boosaaso garacad ay toos ugu gudbaan gudaha gobollada kala duwan ee etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida mudana guddoomiye mudanayaal iyo marweyn waxaa heer gebagaba ah maraya dhismaha sanduuqa horumarinta puntland sanduuqan ayaa ah sidii aan horeyba u sheegnay wuxuu midayn doonaa qorshayaasha horumarinta puntland wuxuuna kaloo sare u qaadayaa isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadeed ee barnaamijyada horumarineed dowladda puntland waxay sidoo kale gacanta ku haysaa qorshe lagu aasaasayo bangiga horumarinta puntland oo noqon doono mid ay isku xihan yihiin sanduuqa horumarinta sidoo kalena fududayn doona fursado shaqo abuur iyo in kor loo qaado fursadaha maalgashiga iyo ee khayraadka puntland waxaa ceegaaga khayraad dabiici ah oo kala duwan sida macdanta shidaalka kalluunka xoolaha nool beeraha beeyada dowladda puntland waxaa ka go'an in si dhaqso ah loo hirgeliyo qorshayaal looga faa'iideynaya khayraadka alle ku manaystay dhulkeeda dowladda puntland weli kama quusan ka mid ahaanshaha dowlad midnimo soomaaliyeed oo federaal ah laakiin inta laga helayo dhismo dowlad heshiis lagu yahay sida uu qabo qodobka 4 iyo qodobka 54 ee dastuurka puntland
iyo qodobka 44aad iyo qodobka 142aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed Puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax bannaan uga faa'iidaysato khayraadkeeda ayna geli karto heshiisyo caalami ah haddaba Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo rabta inay maal gashato khayraadka ku jira dhulkeeda haddii ay tahay ganacsato Soomaaliyeed kuwa ajnabi ah iyo dawladaha daneynaya inay Puntland maal gashtaan mudana guddoomiyey mudanayaal iyo marwooyin waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14 Abriil iyo 15 May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 Juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka golaha xukuumadda Puntland wuxuu 22 May 2026 soo saaray in Xasan Sheekh Maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed oo xafiiska ku sii joogo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo isugu jira dowladda Puntland dowladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyay sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay'adaha dowladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Puntland waxay kaloo soo bilaabo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka Puntland ayaa ka hortimid qorshayaal oo Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dowlad dhiska Soomaaliyeed dowladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyo diiday afduubkaas siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyay taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka asagoo sheegtay inuu bedelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bixi doonto wuxuu si bareer ah ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland oo ay ogtihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay wuxuu horay duulaan hubaysan ku qaaday magaalada Raskamboni ee dowladda Jubbaland asagoo halkaa ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya wuxuu sidoo kale afgambi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyay magaalada Baydhabo asagoo xoog ku muquuniyay meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambeyntii ka jirtay wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho sida aad la socotaan madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayay kacdoonkii shacabka ee magaalada Laascaanood ka dhacay bishii December 2022 ilaa Agost 2023 asagoo markii dambana isku dayay in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh ayaa isku dayay in uu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ee muddada dheer kula jirtay cadowga argagixisada Daacish
asagoo ishortaagay ku sameeyey taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid a saaxiibada caalamka wuxuu kaloo calqaradayn joogto ah ku sameeyey diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayey dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayey iyada oo si joogto ah loogu diidayey in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya dowladda iyo shacabka Puntland oo fahamsan dhagaraha xasan sheekh maxamuud ayaa isha ku haya fargelinta joogtada ah ee uu ku doonayo inuu ku carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida ka jira deegaanada Puntland dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka xaafuun bayla eyl iyo jariiban ee Puntland dhalinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas dowladda Puntland marna ma aqbalayso qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hannaanka dowlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah uuna saldhig u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee 2012 waxayse diyaar u tahay inay qayb ka qaadato sidii lagu gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay hay'adaha federaalka ah dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 48aad ee dastuurka ku meel gaarka ah waxay aaminsan tahay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay si xor ah ugu dhaqmaan dastuurkooda madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ka daayo fargelinta iyo jajuubka siyaasadeed ee ku hayo dowladda Puntland waxay si adag uga digaysaa wixii faragelin amni ah ee madaxweynuhu hore ka dhex wado meelo ka mid ah deegaanada Puntland dadka reer Puntland waa inay meel uga soo wada jeestaan xasaradaha amni iyo siyaasadeed ee uu wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda Puntland waxay sidoo kale cambaaraynaysaa barakicinta jajuubka xariga dilka uu madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday xasan sheekh maxamuud ku hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan duulaankii hubaysnaa ee uu ku qaaday madaxweynihii hore ee dowladda federaalka mudane Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre sidoo kalena gudaha loogu galay laguna burburiyay hanti ganacsato Soomaaliyeed ee ku lahaayeen magaalada Muqdisho dowladda Puntland waxay beesha caalamka ugu baaqaysaa inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo joojiyo damaca waalida ah ee xasan sheekh maxamuud rabo inuu afduub siyaasadeed ku sii joogo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay lagana hortago sii socosho firaaq dastuuri ah iyo qalalaase amni mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan si rasmi ah halkaan ugu dhawaaqayaa inuu inoo furan yahay kalfadhigii 58aad ee golaha wakiilada Puntland waxaana rajaynayaa in aad guulo ka gaartaan dhammaan qodobada masiiriga ee idin horyaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu